haddaad aragta gabarh jaad iibinaysa ama maqaaxi fadhidana waxaad ogaataa afartii la dhalatay baad dayacday ogow ninkeygii baad dayacay walaalkeed baad dayacan aabaheed baad dayacay inankay dhashay baad dayacay gabadhu la dooni maayo waa warshadda meel walba ha dhigin warshaddu waa inay aqali noo dhex fadhidaa ubad waa inay dhashaa ubadkaana dhaqanka wanaagsan waa inay ku tarbiyadaysaa labadaasaa qof walba ku soo socota hadday geeridu ku daysana gabow waa ku daynayn hadday cimriga laguu dheereeyana gabowgaa ka soo horreynaya ogow inaad dhimataana waa naxariista ilaahay dadku haddaynan dhimanayn cadaab bay noqon lahayd nolosha adduunyadu cadaab waayo aabbaha oo ku dul fadhiya iyo aabbihii oo aqalka kuu jeefa hooyada oo aqalka kuu jeefta ayadoo hooyadeedu aqalka kuu taala nolosha say noqon lahayd waa la isnici lahaaba marka in la kala dhinto oo dadku ina ay dhalato ina adduunka ay ka baxdo waa naxariista ilaahay bay ka mid tahay marka ilaahay kama maarmayno waan u baahannahay mar walba kama maarmayno kama dhuuman karno meeluusan ku arkayna ma dhici karta inaad tagtid wa huwa macakum aynamaa kuntum wallahu bima tacmaluuna basiir baa layidhi meeshaad doontaba joogoo ilaahay waa macaaga waxaad camal aad samaynaysana ilaahay waa ka ku arkaya ku maqlaya laakiin waxaa nasiib darro a maanta baa layidhi he qof bini aadana ilmo yar xataa qofka hadduu ag jooga isagoo tuuga oo xad isleh ilaahay ka xishooni maayo ilmaha yar buu leeyahay ceebtaadu ummadda u sheegi buu leeyahay hadduu damco inuu zine ku dhaco laakiin ilmo yar hadduu arkaayo baa la yidhi ilmaha yar buu ka xishoonu ka joogsan baa la yidhi ilaahay arkaayey ee maqlaayey ee abuurtayna ka xishoon maayo kana cabsoon maayo fanatuub ila allah ilaahay han u toobad keenno oo diinteenna macaan baa ilaahayna siiye islaamkee diinteenna han baranno oo diinteenna maaragtaani han isku xushmayno oo diintu xuquuq bay noo kala yeeshay xuquuq wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun baa ilaahay yidhi nolosha adduunyadu waa labadaa nuc weeyaan rag iyo haween rag keliya adduunka hadday noqon lahaana noloshu qiimo ma yeelateen haween keliya hadday noqon lahayna nolosha adduunyadu qiimo ma yeelateen dadku hadday wada masaakiin ay noqon lahayeenna macno ma samayseen waxay noloshu macno ku samaynaysaa ma taqaanaa marka la yidhi intaana waa gaalo intaana waa muslimiin marka la yidhi intaasi waa haween intaana waa rag marka la yidhi intaasi maaragtaane waa maalqabeenno intaana waa masaakiin marka la yidhi intaasi way cadda intaasina way madowdahay marka la yidhi intaasi way dhalatay intaasi way dhimatay tan marka xarakaadkan ilaahay nolosha uu sameeyey ayaa nolosha adduunyada qiimo u yeelaysa marka kulligeen ilaahay han u soo noqonno oo haweenkuna dee waa haweena makaanada diinta islaamka ay ku leeyihiin iyakuna ha gartaan diinta islaamka kor bay nii qaaday oo nabigeenu calayh salaatu wasalaam waa kii lahaa ninka 4 gabdhood ay u dhalato 4 gabdhood ee 4taa gabdhood koriya ee korsiintooda u wanaajiya ee u guuriya buu nebigu leeyahay naartay gaashaan uga noqonayaan markaa nin saxaabi ayaa yidhi ninka 3 hablood ilaahay siiyeyna 3duna waa lamid buu nebigu yidhi ninka 2 ilaahay uu siiyeyna 2duna waa lamid buu nebigu yidhi ninka mid keliya ilaahay siiyeyna miduna waa lamid buu rasuulku yidhi nebigu ragga ma sheegin haweenkuu sheegay shareecadda diinta islaamka waxay adduunka timiday ayada oo maaragtaane ayaamaljaahiligi qurayshtu ninku islaanta aabbihii uu ka dhintay uu guursan karo islaamnimada way timid oo waxaasoo dhan way masaxday waxay diinta islaamku ay timiday quraysh oo ayaam jaahiligii ninku 2 hablood oo walaalaa uu wada guursan karo haddana diinta islaamku taana way masaxday waxay shareecadda islaamku ay timiday ragga oo gabadha u dhalata intay ka xumaadaan dhalmadeeda markay in yar kortana ay qaadaan ay ciidda geliyaan ay aasaan diinta islaamku waxaasoo dhan bay baabi'isay bal abuurka bini aadanka markii ilaahay uu ka waramayey ragga iyo haweenka ilaahay horta sheegay lilaahi mulku الsamaawaati wاlardi wamaa baynahumaa yakhluqu maa yashaa yahabu liman yashaau inaahan baa ilaahay yidhi abuurka markii laga hadlaayey waxa ilaahay uu sheegay kii ilaahay uu doono inuu ilaahay gabdho uu u hiboonayo kii ilaahay uu doonana ilaahay inuu u hiboonayo wiilashay gabdhaha waxaa la hormariyey gabdhaha la hormariyey halkaa maxaan ka fahmaynaa markaas gabadhu diinta islaamku adiga darajadaadii makaanadaada kor bay u qaaday kor nebi maxamed calayh salaatu wasalaam safar kama soo noqonin ilaa maskiidkuu tegayo 2 rakacu ku tukanayey reerihiisa ziyaarada intuunan ka bilaabin xaasaskiisa waxau nebigu ku horreynayay guriga faatimo ku horreynayey maalintuu nebigeenu dhimanayeyna
dhabtii cali iyo dhabtii ibnu cabaas kuma dhimane dhabta caaisha nebigu caaisha dhabteedu ku dhintay cadaygana iyadaa afkeega intay ugu jilcisay nebiga afka u gelisay baa la yidhi halkaasi waa maxay waxaa layna tusinayaa diinta islaamku gabdhaha makaanada ay gaadhsiisay waqarna fii buyuutikunna baa ilaahay yidhi gabadha muslimadda maxaa laga rabaa muuminadda inay noqoto gabadh guri jooga oo macnaha guriga u joogaysa waa maxay waa warshad warshadduna meel keliya in lagu rakibay qiimo ku leedahay haddii warshadda lagu rakibo magaaladan oo la furfuro oo xamar la geeyo oo la furfuro oo jabuuti la geeyo way kala daadan warshaddaasi warshaddu waxay macno ku leedahay hal meel keliya ayaa lagu rakibayaa deedna intaaj waxay soo saarta ayaa laga guranayaa gabadha muuminaddu waa warshad bal waxaa warshado maanta adduunka yaalla warshadda ugu qiimo badan waa gabadha weeyaan waayo gabadhu riximkeedabaa ilaahay bini aadamka uu ku abuura 8 ubada ayaa gabadhu adduunka ku soo biirin ama 10 ubada ayaa gabadhu adduunka ku soo biirin intaasi waxa laga helay waa haweenka weeyaan markaasaa warshadaas si aynan u burburin baa ilaahay leeyahay warshaddu meel keliya ha fadhiisato iyana dhaqdhaqaaqin oo gabadhu guriga ha fadhiisato yaynan maqaaxi fadhiisan yaynan shaah iibin hadday gabadha wax iibinayso ganacsiga loo ogol yahay waa ta aqalkeeda dhexdeeda zaynaba radia allaahu canha uma almuuminiin zaynab binti jaxash gabadh ganacsata ayay ahayd laakiin ganacsigeegu suuqa ma ahayne aqalka dhexdeeday ku ganacsanaysa aqalkeyga dhexdeeda waxyaabaha dumarku farshaxanka ee gacmahooda ku sameeyeen intay samayso ayay iyo iib geynaysay dadka u dhiiban jirtay oo lasoo iibin jiray lacagta halkaa ka soo gashana ilaahay diinkiisay ku bixinaysay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ajashiisii markay soo dhowaatay maalin maalmaha ka mid a isagoo xaasaskiisii la fadhiya buu ku yidhi tiinay niigu gacan dheer ayaa dhimashada iigu soo xigta buu ku yidhi caaisha radia allaahu canha waxay tihi maalintaa intii ka dambaysay mar allihi markii dumarka nebiga haddaan dhowr isku hellaba waxaan odhan jirnay naabal gacmeheenaan isku qiyaasno markii uu nebigu adduunyada ka intiqaalayna qofkii ugu horreeyey dhimashada ku xiga waxay noqotay zaynaba radia allaahu canha zaynabana waxay ahayd naagta noogu gacan gaaban laakiin gacan dheeradu nebigu sheegaya gacantan ma hayne waxaan ogaanay markii dambe inay tahay xagga sadaqadda gacan furan bay ahayd waxa ay ganacsi aqalkeeda ay ku iibinayso ay ku dhex iibinaysay ilaahay dartii u bixin jirtay masaakiintay siinaysay agoomahay siinaysay qaraabaday siinaysay mujaahidiinta diinta ilaahay u jihaadaysay odhan jirtay lacagta ay igu dara maaragtaan ciidamada baxaya muslimiinta saxaabada tijaaradaasaa gabadha loo ogol yahay innakana maanta meelaha tuulooyinkeena markaan marayno waxaad arkaysaa gabdhaheenni oo midba midday ka qurux badnayd ba weliba miis jaada dul fadhida haddaad aragta gabadh jaad iibinaysa ama maqaaxi fadhidana waxaad ogaataa 4tii la dhalatay baad dayacday ogow ninkeygii baad dayacay walaalkeed baad dayacan aabaheed baad dayacay inankay dhashay baad dayacay gabadhu la dooni maayo waa warshadda meel walba ha dhigin warshaddu waa inay aqali noo dhex fadhidaa ubad waa inay dhashaa ubadkana dhaqanka wanaagsan waa inay ku tarbiyadaysaa dhaqanka wanaagsan luqadeena af soomaaliga ma luqada aabbaha la yidhaha mise luqada hooyo ya maxaa luqada hooyo loo yiro luqada odayga loo odhan waaye hooyaa barta waa runtii adoo soomaaliya haddaad naag jarmala guursato ilmahaaga af jarmalun bay bari maxaa ilmaha ay luqada hooyada u bartaa leanna ilmuhu inta badan hooyadii u ag joogaa marka hooyo waxaan u baahannahay guri jooga oo murabiyadoo ilmahayga dhaqanka wanaagsan ku tarbiyadaysa cabdulqaadir jaylaani allah u naxariistay qisooyinkiisa waxaa maqlay beri agoon buu ahaa hooyadii baa korisay lacag intay u ururisay bay tidhi lacagtaa qaado safarkaa raac bay ku tidhi magaalada baqdaad baad galaysaa masaajida culummada cilmiga xalaqaat alcilmi culummada cilmiga dhigaysa ka soo baro adoo caalim noqda maahayn haysoo noqon bay ku tidhi safarkii uu la socday ayay niman mooryaana markaa dhexda u galeen mooryaan markaa habeen madow bay ahayd oo nin kastoo dee qof kastoo dee mooryaantu markay qabato qofka wuxuu haysta uu qarsadaa yarkii yaraa markaa tuugii u horreeyey baa ku soo hagaagoo ku yidhi waryaa lacag maxaad haysataa adu sheeg lacag aad u fara badan u watay buu sheegay baa la yidhi aaway buu dha waaba tanoo uu soo saaray uu tusay ninkii baa yaabay mooryaanta aha oo yidhi adeer
lacagta inta lag maxaad iskaga sheegtay ood u qarsan weyday dadkaaba waa kuwa xoogi qarsanaye wuxuu ihi aniga hooyaday baa igu tiri weligaa been ha sheegin haddaad beenala noqotaa ilaahayna uu ku naci bini aadamkuna way ku nacayaan ninkii yarkii yaraabuu gacanta qabtay lacagtiisiina uu hor qaaday ninkii dee tuugta ugu sarreeyey oo dee geedkaa hoos fadhiya buu u geeyey markaasuu waa yeelkaa uga kaca kursi dhalinyaray allah ina barakeeya halkan hore uga kaca welibana maa sha allah ku saliya xabiibkeena allahuma salli calaa tuugiinta ugu weynaa baa loo geeyo le ilmaha mal hadalkiisa dhegeyso lacagta intaa la eg bu wata uu sheegay markii la yidhi maxaad u sheegtayna wuxuu yidhi hooyaday baa